السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام دمانتين ميل كستا جوجتان نعاف ما تقبطان نمعيسانتيهين ميل كستا حلي كستا iyo saacad kasta idintahay Allah subxaanahu wa ta'ala idinku xifdiyo. Welcome back soo dhawaada waynaga isku soo noqonay iyo another video ma caafimaad qabtaan ma nimcaysantiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa meel kasta aad joogtaan in caafimaad iyo nimco alla ku jirtaan dhammaan walaalaha gadaan lagaga soo biiro welcome kusoo dhawaada meel idinka jecel yahay walaalahayga hore welcome back dhammaantiin jazakallahu khayr. weli waxaan joogaa Minnesota iyo guriga hooyaday alxamdulillah aadaan u fiicanahay biisiga Minnesota iyo wareegi ayaa wali lagu jira so insha Allah bidmillahi karin soo dhawaada sidee loogu nahay adeega cunto labaad oo ugu badan oo lacagtu inaga gasho ta ugu horeyso kirada ama mortgage-ka ta labaad waa cuntada inta badan money rent ku baxay yani just cunto markay noqoto waxa la iska bixi waa cunto laakiin cuntada waa meesha ugu badan oo lacagta ku bixino anigana waa wixii ugu badnaa oo birigi hore aan budgetka ku bilaabay kan Minnesota imi guriga hadda hooyaday aan joogo waxaan u nahay 3 qof aniga hooyaday iyo walaashay ayaa guriga soo adeegta walaashay waxay samaysaa ama ay adeega u samaysaa sidii beriga aan ahaan jiray waxaan u bixiyay bacwada week 2 jeer 3 jeer intay doonto ayay iska daba noqonaysaa oo bacway wada week waxa ku baxaysa intaas oo lacagtu uma xisaabsana budget grocery male kharashkood iyagoo 2 qof kaliya ciidaas u maraya waan yaabay anigu waxaan ku yiri markaan u imi aniga grocery-ga bishan halay ugu wareejiyo inta aan idin la joogo aniga ayaa budgetka inoo sameynaya aniga soo adeegaya bacaha sidaa okay waxaan saddexdeena maadaama 3 qof nahay 750 eegaya inay nagu filaato qofkiiba 250 ma dhici kartaa bal aynu eegno haday naga yaraatana waynu arkayna at least bisha dambaad ku kordhin haday badatana waa eegayna waxaa jirta markaan u sheegay gabadhan Faransiisna oo 3 caruur leh waxaan ku yiri saddexdeedu bisha tan September grocery-gayga budgetkiisu waa $750 $750 aniga ka masuul inaan week walba soo adeego oo budgetka aniga ayaa grocery-ga qaadanaya okay waxay ugu tirma dhici kartaa reerka hawaali waxaan insha Allah bal wafiirnina sidii ayaan budgetka ula wareegay bishii September $750 ayuu budgetkaygu ahaa week walba soo adeegay waxaan u baahno waxa jirta week-weegan xataa wax soo adeegan jirin bisha horaanteedii ayaa waxaan aaday dukaanka weyn Sam's Club waxyaabihii waaweyn aan u baahnay oo dhan baan soo gaday haddana waxaan aaday grocery Whole Food-ka dukaamada kale grocery-ga caadiga lagu gado wixii aan u baahnay baan soo gadanay ka bacdi week-kii marka wax naga dhamaadaan caanaha waxyaabaha yareer waa ku noqonaynay yaanaan hadal ku daalnay week walba sidii baan aadayay waxaan sideeda badista gurigayga markaan joogay week walba budgetka igu soo baxa waan qoraa waan ogahay exactly inta igu soo baxo marka week walba iyo markastaan grocery-ga aado buuggii qalin baastay $50 baa igu soo baxay 40 baa igu soo baxay 100 baa igu soo baxay waan qoray bishii markay dhamaatay oo aan budgetkii lacagtii xisaabiyay oo isku daray $670 ayaa nagu baxday bisha tan September budgetkayguna wuxuu ahaa $750 wax aanu u baahanahay oo aanan soo gadan ma jirto hilib miyaa fish miyaa adeegyada exactly sida caadiga aan u adeegano laakiin farqa kaliya oo noo dhaxeeyo wuxuu anigu waxaan soo gadayo waan ogaa waan qorayay lacagta xisaabtamayna waan ogaa laakiin walaashay waxay ahayd exactly sidii beriga aan ahaan jiray dukaankan gal bac ka soo qaad kan kale bac ka soo qaad 2 shay doono 10 shay soo qaado wax different ah oo kale oo aan sameeyay ma jirto adeegii ay soo adeegi jirtay intii in la ama ka yar waa laga yaabaa inaan ku soo adeegay laakiin exactly wixii ay u baahnayeen guriga ayaan soo adeegay laakiin waxaan daayay extra-hii waxaan daynay inaan iska soo dabagado alaabtii hore oo taala ilaa alaabta markay dhamaataan ka weekend si dhimaanayso baan tegay caanihii roodigii qudradii waxaan u baahnayna soo gadanay halka maybe iyadu alaabtii oo taala ay alaab kale ka korkeenaysay bisha markay dhamaatay gabadhii aan faranka ahaa oo 3 caruur lahayd baan screenshot ka qaaday picture inta ka qaaday baan u diray grocery-gayga waa qaadan weyday aniga ayay tan soo martay aniga ayaa grocery-ga cuntada waxyaabihii igu darno oo budgetka aan ku bilaabay waxay cuntada banaanka iyo grocery-ga alaabta cuntada adeega sida walaashayba week walba iska daba noqonay marba 3 jeer 2 jeer 4 jeer caana soo gado waxaan arkaan u bacdo sita man ay xisaabsanay intaan soo gatay so mar walba ugu grocery-ga markaynu gadanayno waa inaynu ognahay how much inagu soo baxday inagoon ciriiri isgelinayn inagoon dayac ku noolaanayn inagoon gaajo reerka ku dilayn laakiin adeega aad soo adeeganaysid maxaad u baahan tahay
kii hore oo yaala khasamaha inaad mid kale soo gadatid baradhadii hore ku tala inaad baradho kale ka daba keentid oo istiraadi baradho kale aad u baahantahay maaha guriga maraadan ka bixin adeeg aad u baahantahay sii qoro marka aad waxa sii qortid ogtay waxaad u baahantahay dukaanka markaad aad wax badan kaama qaadato inta badan waxaynu soo gadanaa waxyaabo aynaan u baahnayn inagoo 10 shay inoo qoraya inaynu dukaanka tagno oo soo gadano baynu halka waxaynu ku aragnaa shay kale alla shaygan uu maanta waa raqiis iska gado alla shayga kan maanta wallahi waa iska macaan iska gado bad miyaad u baahan tahay marka ugu horeysa waxay ku xiran tahay family-gaaga meeshaad wax ka gadatid kharashka aad ugu talagashay iyo waxyaabaha aad gadatid iyo how many times a week baad adeegata more aad dukaanka ku noqotid waa more lacag soo isbendi karaysid haddaad dhowr jeer dukaanka ku noqotid markasta aad gashid lacag baa kaa soo baxaysa marka caanaha iyo roodhiga kale way naga dhaman karaan caadi wey weliba haddaad ilmooley tahay inaad ku noqotid okay laakiin muhiimaddu waxa weeye number 1 waxaad u baahantahay inaad sii qoratid oo adigoo og waxaad u baahantahay shay kasta oo kaa dhamaado ama qalin warqad qor ama taleefankaaga ku qoro talabaad dukaanka markaad tagtid focus saar waxa aad u baahan tahay laba caanaamiyaad u baahan tahay wayba afar u gadanaysaa tamaandho way ku taala wayba tamaandho kale soo gadanaysaa wixii marka ku yaalo weeka kugu filan oo aadan u baahnayn ka maaran ka tag ta kale oo ah haddii ay wax sel jiraan oo aragtid wax sel oo aadan u baahnayn because of sel weeyaan ha u gadan sababtoo ah selkaas adiga lacag baa kaa gashay ma u baahan tahay gado ma weeka dambaad u baahan tahay oo lacag baad seef garan kartaa waa sel gado laakiin ma haysata haddaad haysatid oo aadan u baahnayn selku qiimo ma laha sababtoo ah dukaanka ayaad u faa'iidayso wuxuu gatay adigu wixii uma baahnin lacagna way kaa isbendi garowday how many times ayaad adeegataa sidee u adeegataa ma wax waaweyn baad soo gadataa ma wax yar baad soo gadataa soo wax kasta waxay ku xiran tahay family-geena no two family laba family oo isku mid ah ma jiro dadku isku kharash maaha isku adeeg ma gataan isku meel kama soo wada adeegtaan sidoo kale dukaanka aad kasoo adeegataan way ku xiran tahay which dukaan baad aada alxamdulillah I'm so proud of myself kayga iyo gurigii inay bisha tan budgetkii 750 ahaa aanu ka hoos marnay oo 670 aanu ku adeeganay anagoo 3 qofa adeegii everything aanu u baahnayna soo adeeganay cuntadayadii gadanay guriga adeegii soo adeegnay laakiin sidoo kale mid kale oo jirtaan waxay banaankana cuntada waa ka cunaynay maybe cuntada banaanka weli maan xisaabin maybe cuntadaan banaanka cunayna inay badnayd oo budgetka ka kormartay taa budget umaanu samaynin laakiin cuntadana dibad ganacsi Minnesota qof yaalo restaurant halkan ku yaalo meel kale ku yaalo juqdaasa ka dhamaanaysa laakiin adeegii gurigu 670 buu noqday so insha Allah bidmilaahi karin waxaaga budget garayso grocery-ga markay noqoto cuntada ay noqoto meel kasta aynu joogno cuntada waxa weeye waxyaabaha ugu badan oo aynu kharashka ka galo waana waxyaabaha ugu badan oo aynaan lacagtooda gelti dareemin oo dhan waa cunto wad u baahan tahay macna male haddana kharash baa kaa galay inteena badanna waxaynu gadanaa ama adeegaynu qubno ama alaab aynaan marka u baahnayn oo aynu iska soo gadano for any reason ay noqotaba so dii budgetkii aad ugu talagashay uu kaa yaraado dib male at least waad ogaan kartaa bisha dambe ma aha mar walba lacagta ugu talagalna inay nagu filaato ama way naga yaraan kartaa ama way naga badan kartaa muhiimaddu waxa weeye inaynu ogaano intay nagu baxda haddeero kale budgetkay ugu soo 750 muu ahayn September October maybe inuu ka badato 670 buu noqday maybe inay ka baqto so inaynu xoogaa flexible noqono inaynu ogaano inuu budgetkeenu isbedeli karayo waa okay haddaad aragtay budgetkaaga inuu batay oo kharashkaaga aad u baday ku noqo waxaad tiraahdaa maxaa qaali garoobay ma cuntadii baa qaali garowday mise anaa wax extra aan u baahnayn soo gadanaya haddii cuntada ay qaali garowdo ama adeegii 750 markii hore aad ugu talagashay aad aragtay bisha 800 ku soo adeeganay bisha dambana 900 ku soo adeeganay ugu cuntadii ayaa qaali garowday 750 aad ugu talagashayna kuma filan so budgetku saas ayuu ku fiican yahay hoos waad u dhigi kartaa kor waad u dhigi kartaa waxaad aragtaa adigoo $1 budgetkaagu ahaa 500 mise bilba 300 baad kusoo adeegata waxaad aragtaa masha Allah igu filan so budgetka inaynu flexible noqono oo aynu ogaano budgetku inuu isbedbedeli karayo oo waxna ku darsami karaan waxna aynu ka dhimi karnaano taasi waa okay maaha intaynu meel ku dheganaano in haddii kharashku inagu yaraado ama inagu bato inuu muraara dilaacno oo nanaalo intaasaan ugu talagalay kale wax ka soo gooy even hadday lacagtu xataa cidhiidhi ku tahay insha Allah bidmilaahi nolosha oo qaali noqoto inflationka waxyaabaha isbedbedel inagu ma control karna waxaynu control karna waxyaabaha aynu gadano iyo waxyaabaha aynu ka maarmi karno iyo waxyaabaha inoo muhiimka insha Allah bidmillah ina walaasheena ayaa ii soo qortay commentigan marka commentigan ayaa rabaa inay looga jawaabo walaashe macaana kastan commentiga ugu qoray hadana laakiin waxaan rabaa inaan si fasaxa maadaama arrintan inagoo dhan ayna wada haysato waayo waxay tiri abaya aniga ila tali oo biilka 35,000 waa lacagta Kenya
iga soo harto ayuuto kuma jiro, laakiin deyn baan ku bixiyaa bil kasta. cabaayad kasta iyo baag kabo aan dhammaad lahayn ayaa nafta ii keenay. bil kasta waxaan damcay inaan iska ilaaliyo, mana sameeye. sidee iisoo jawaab. mar abaayaday walaashay macaan, waxaan leeyahay waa mahadsan tahay commentigaaga. arintana oran keligaana qaaliyay ma aha, arintan way inaga dhaweyna wada haysataa inteena badan. deynka iyo wareegtada lala wareegayo aynu qaadanayno waa buuxood. 35 kun lacag badan weeye Kenya, intay tahay ma garan karo, laakiin daas ay tinkeena lacag badan tahay. insha Allah lacag badan haday ku soo hadho. marka ugu horeysa xabiibti waxaan kugula talinayaa insha Allah bidmillaahi kariin, marka ugu horeysa dharkan faraha badan aynu gadanayno xafash waxaan ahayn male. waa fiicanta inaynu labisano, waa inaynu dhar fiican haysano, laakiin dharka farabadnidiisu qiimo badan ma keeno aan xafash ahayn. markii aad lacag haysatid wax soo gado, ta ugu horeysa aan kooniya lacagta fadlan deynka lagu leeyahay oo dhan iska bixi insha Allah bidmillaahi kariin, because lacagta deynka aad u galaysa waa dhar. xabiibti adigoon guilty dareemin, adigoon ismurugeyn, deynka xooga saar inaad iska bixiso insha Allah bidmillaahi kariin. waxaa soo haray dharka aad gadanayso, wax deyn dambe oo dambe ha qaadan. dukaan, cabaayad, dhar, kabo, boorso, no. haddaadan lacag haysan naftaada u sheeg, ma gadanayo, deyna kuma qaadanayo. taas waxyaabaha ugu horeeyo maasha Allah oo ku anfici doono weeye. haddaad maskaxdaada u sheegtay ilaa aan lacag haysto oo dukaan tago oo wax aan rabo aan soo gato maaha, qof binaadam deyn kama qaadanayo. dumarka deynka ku keenayna waxaa tirada hay keenin, deynkii waa iska daaya, ma idinka qaadanayo insha Allah bidmillaahi kariin. markaan lacag haysto ayaan idin imanaya. taas lacag kaasha haysatid mahana deyn dambena ha qaadan. ta saddexaad oo ah walba lacag u bajad garay, 100 kun noqotay, 10 kun oo Kenya money noqotay, whatever ay noqoto, u bajad garay wixii aad markaa u baahantahay. cabaayad noqotay, 10 noqotay, 11 noqotay, insha Allah bidmillaahi kariin u bajad garay, ku soo gado si aan wixii aad gadan jirtay oo faraha badnaan aad hal mar u joojin. waxaad u baahataa markaas leed waad gadan kartaa, aad gadatid faraha badneed aad gadan jirtaan ay kaa yaraato, aadna og tahay in aad waxaas maalinta ay kaa dhamaadaan 10 kun, 100 kun, 200 kun ood haysatid. marka ay kaa dhamaato aad aragtid inaad isbendi garaysay, no more dambe. so insha Allah bidmillaahi kariin waad ka bixi kartaa. lacagtaada dhaqaalayso, wixii alla ku siiyo wax ka dhigo, wixii aad haysatid ka xaragood ka noolo, laakiin fadlan deynka iska ilaali. deynku waa cadowga dhaqaalaha, sababtoo qof bini'aadmiya ayaad maalin walba lacag siinaysaa. anigaygaas kula hadlaya deyn baan bixiya, lacag student loan iskuulkii lacagtiisa baan weli bixiya. bil walba markaan bixinaya halkaas ay xanuunta, because lacagtaadi savinka ku noqon lahayd, wax ku qabsan lahayd, sadaqaad ku bixin lahayd, qof bini'aadmi ama gaal islaam ku doono ha aada ayaad siinaysaa. so insha Allah bidmillaahi kariin macaantayay deynka bixi, deyn dambena ha isku qaadan fadlan insha Allah bidmillaahi kariin. khayr ayaan idin rajaynaya. bajadka ogaada, ku noolow nolosha aad jeceshahay, aan create garay, samayso adigu nolosha aad rabto insha Allah bidmillaahi kariin. wax kasta waynu samayn karnaa, wax kasta aynu maskaxdeena galin, xoolo noqotay, adduunyo noqotay, nolol noqotay, waxbarasho noqotay, diin noqotay insha Allah bidmillaahi kariin. so intaynu video kala kulmayno khayr ayaan idin rajaynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.